madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa durba waxa uu la soo baxay dhaqan aad u foolxun oo ay shacabka magaalada Muqdisho ka argagaxeen. Xasan Sheekh Maxamuud oo maalmo kooban jooga xafiiska looga taliyo dalka ee Villa Wardhiigley ayaa waxa 12kii maanta u xirnayd wadooyinka ugu muhiimsan magaalada Muqdisho. xasan sheekh oo la sheegay inuu taliyaal ciidan kula ballansanaa wasaaradda gaashaandhigga kuwaasi oo kala hadlayay sidii loogu diyaar garoobi lahaa caleemasaarka madaxweyne xasan sheekh oo ka dhacaya magaalada Muqdisho 9 bishan ayaa waxa loo xiray wadada isku xirta Afgooye iyo magaalada Muqdisho ee loo yaqaano Makaal Mukarrama waxaana wadadaas inta badan adeegsada gaadiidka mootobajaajleyda basaska iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed. muuqaaladan aad u jeedaan waxa laga soo duubay lambar 4 oo ah halbowlaha magaalada Muqdisho halkaasi oo ay shacab badan dhooban yihiin oo lugeynaya. wadooyinkan ayaa waxaa saaka aroortii lagu soo daadiyay ciidan u badan militariga Soomaaliya oo laga keenay furimaha. ciidankaas oo aan ahayn kuwii hore wadooyinka u joogi jiray waxayna ciidankaas durba xirteen wadooyinka ugu muhiimsan magaalada Muqdisho. shacabka oo durba maleynayay in saacado kooban ay xirnaan doonaan wadooyinkaas kadibna loo furi doono ayaa waxa ay isla soo gaareen 12kii galabnimo waxaana ay shacabku aad uga niyad jabeen maamulka cusub ee uu hogaaminayo Xasan Sheekh. marka dib loo eego madaxweynihii ka horeeyay Xasan Sheekh Maxamuud ee uu talada dalka kala wareegay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo 5 sano iyo dhowr bilood xukumayay dalka hal maalin ma aysan dhicin in wax ka badan 3 saac ay wado u xirnaato madaxweyne. farmaajo oo aad uga carari jiray in wado loo xiro shacabkana lagu yiraahdo waxay wadadaasi u xiran tahay madaxweyne Farmaajo ayaa waxa la sheegaa in uu marka uu wadada marayo oo 10 daqiiqo wax ka yar wadadaas loo xiri jiray waxaana durba wadadaas laga qaadi jiray ciidanka. laakiinse madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu dib ula soo laabtay dhaqan kale hore lagu eedeeyay kaasi oo ahaa wado ciidan inta la keeno lagu ilaawayo oo looga tagayo taasi oo ilaa maanta xirnaanaysa iyo madaxweyne damaashaad isaga jira habana xafiis booqanaya. shacabka magaalada Muqdisho oo 5 sano ee la soo dhaafay aan la kulmin culays ballaaran oo ka ah dhinaca wadooyinka ayaa maanta qaadan waayay waxaana loo diiday wadooyinka muhiimka ah ee joogeen ciidamadaasi in ay yimaadaan warbaahintu. laakiinse shacab Soomaaliyeed oo aad u barakaysan ayaa moobiladooda ku soo duubay muuqaaladan qaadana la culayska la saaray. muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxay si weyn uga niyad jabayaan maamulka uu hogaaminayo Xasan Sheekh kaasi oo durba bilaabay inuu wadooyinka sii xoojiyo sidii loo xiri lahaa. madaxweyne Xasan Sheekh dhawaan waxaa laga soo xigtay inuu wadooyin badan furi doono isaga oo shacabka u naxaya laakiinse taasi ma muuqato marba haddii madaxweynihii isaga oo wasaarad booqanaya wada ay u xiran tahay in ka badan 7 saacadood. dhammaanba shacabka magaalada Muqdisho ku nool ayaa waxaa maanta loo diiday in ay dareenkooda ka dhiibtaan ayaga oo lagu qasbay inaysan soo galin wadooyinka xiran. sidoo kale warbaahinta madaxa bannaan ayaa loo diiday inay halkaas yimaadaan si ay xogta ula wadaagaan shacabka. shacabka Soomaaliyeed ayaana inta badan waxa ay ku xiran yihiin Facebook iyo aaladaha lagu kulmo ee Facebook, YouTube iyo TikTok. shacab badan oo aan war ka hayn wadooyinka xiran magaaladana soo aaday ayaa halkaasi dib uga laabtay ayaga oo aad u qalbi jaban waxaana shacabkaasi isugu darmaday shacabka oo aan ogeysiis la siin warbaahintii u soo gudbin lahayd xogta halkaasi ka jidha oo loo diiday inay halkaasi booqato iyo ciidankii oo wadooyinkii xirtay iyo madaxweynihii oo damaashaad isaga jira. taas ayaana ah guuldarro aad u weyn taas ayaana ah dhabarjab weyn oo shacabka Soomaaliyeed aysan qaadan karin. daawada sidee u aragtaa?